السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو أحمد أبو بكر محمد مشان ما أنتوا حاول إمادة مساء أسو استاجي دكتور عمر فقي ومدحوينها هذا كمان إنه نقضى أجعلها مساء أمد الصوماليين ما أنت هلك قفض السجا يعني مساء إنه واحد قبته وما أنتوا إيرجيني سو كاس قف البو ما أنت الصومالية أما شخصي والبورد اللي يراه ويجعلي هاي دبعته والبو ودنك كوسو سائد سو أما أو بلا من دونته أما إيمان دونته قف كور تجي لا إني قف البو ما أنتوا أودرته سياس درت ما أنت عمر فقي وانين wax soo bartay وانين دكتور وانين maanta jecel dalka ama dhalinyarada wax inuu u qabto anigana maanta waxa kaamirada u soo hor istaagay mise dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed u sheegaya in qof walba maanta qofkii wax u qabanayo ama qofkii maanta horumarka dalka ka talinayo in uu taageero sidaas darteed waxa leeyahay mudane Umar Fiqi ku soo dhawaaw dalkeena ummadeena si fiican wax u qabo musharaxa madaxweyne Umar Abdulqaadir Fiqi waxa uu kaga duwan yahay musharaxiinta kale ama aan kaga xulan lahay shakhsiyan ama sidoo kale bulshada Soomaaliyeed shakhsiyan ay uga xulan lahayd waa musharax doonayo in lagu dhaqmo dastuurka sidoo kale doonayo in uu dhameystiro dastuurka dalka wuxuu sidoo kale ummadda Soomaaliyeed oo u ballan qaaday in aan lagu takrifali doonin awoodda dawladda iyo in sidoo kale hawl fulineedka dawladda la waafajin doono dastuurka oo aan la balmari doonin sidoo kale musharaxa madaxweyne wuxuu ballan qaaday ama uu noo xaqiijiyay in uu dhisi doono maxkamad ka madax bannaan dawladda lana taagi karo oo mataqaanaa ii sheeg in dawladda iyo dadka mataqaanaa madaxda ka ah dambiga galaanba lagula tigsan doono maxkamadaas oo ka madax bannaan dawladda oo haddaba aan jirinbo marka waxyaabahaas oo idil iyo wax kale oo la soo koobin karinbo musharax madaxweyne waa uu noo ballan qaaday inuu mataqaanaa uu sameyn doono waana ka filanaynaa waa nin u qalmo waa nin aqoon-yahan ah oo ka soo bixi karo intaas iyo in ka badan oo loo malay karin haddii bulshada Soomaaliyeed oo mataqaanaa ay codkooda ay ku aaminaan ii sheegeen sida aan la socono dalku wuxuu galayaa doorasho dadban oo mataqaanaa ay shacabku malahan awood ay ku xulan karaan musharax ay doonayaan balse baarlamaanka federaalka ee 2021 la soo xuli doono waxaan ka codsanaynaa haddii aanu nahay shacabka Soomaaliyeed in ay Umar Abdulqaadir Fiqi ay codka ay noogu aaminaan si dalka isbedel oo mataqaanaa dhaba oo u gaaro sidoo kale musharax madaxweyne waxyaabo waxa jira oo musharaxiinta kale oo si qaas uga duwan yahay marka aniga sheeg aan dhankayga aan ka eego oo ah inuu yahay musharax diyaar u ah inuu dhalinyarada oo mataqaanaa ay mataqaan kaalin mugle ay ka qaataan dawladnimada Soomaaliya sida aan la soconno markasta waxaan ugu maaweliyaa dhalinyaradu waa mustaqbalka Britoola manihin mustaqbalka Britoola balse waxaanu nahnaa mustaqbalka hadda ayaan nahnaa dadkii dalka hadda wax ka qaban lahay ayaanu nahnaa dadkii dalka mataqaan wax soo bartaan nahnaa burburkii dadka uu ku dhacaan nahnaa haddana isba dhiibin waxbaan soo barnay waan dadaalnay haddana waxaan diyaar u nahnaa dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena inta inaan u adeegno marka adeeg intaan la gaarinbo haddii mataqaanaa madaxda dalka aysan dhalinyarada aysan soo dhaweynin xageed ugu adeegaysaa musharax madaxweyne wuxuu noo ballan qaaday oonan ka filaynaa inuu fuliyo in dhalinyaradu ay door weyn ay ka qaataan dawladnimada soo socoto oo mataqaanaa uu rajaynayo inuu ku guuleysto insha Allah isheeg waana ka filaynaa anagana waxaan diyaar u nahay inaan dalkeena aan u shaqeyno muhiim ma ahan in qofka bini aadanka oo lacag oo ku shaqeeyo iyo wax la mid ah balse waxaa muhiim inuu dalkiisa oo si daacadnimo ugu adeego wixii uu soo bartana oo ugu adeego si loo helo bulsho bad qabto dal badbaado leh ii sheeg in dad mataqaanaa dhisan bulsho dhisan oo mataqaanaa ii sheeg in caalamka la jaan qaado haday noqoto aqoon haday noqoto caafimaad haday noqoto wax soo saar intaba sidoo kale aniga waxaan kamid ahaa dhalinyarada daraasayso ii sheeg in qaybta mataqaanaa petrolka ama qaybta shidaalka sida aad u taqaanin oo fahmaysaan iyo geologiyada aan kamid ahay wuxuu noo ballan qaaday mataqaanaa musharax madaxweyne inuu isku dayi doono ama oo halka hadda ay hawsha marayso oo mataqaan wasaaraddu ay soo bandhigto xalayba oo ii sheeg wasiirka uu ka dhawaajinayay inuu meeshaas uu ka sii wadi doono lana gaari doono heer dalkeena mataqaan shidaalkiisa uu soo saarto macdantiisa uu soo saarto beerihiisa uu tabcado aanan noqono dal isku filan oonan u baahanayn mataqaanaa dad kale dadyow kale aanan isku filnaa doono insha Allah ku doortay musharaxa waxyaalo badan oo hadallo badan soo jeediyay ayaa fiirsaday waxyaalo badan oo dhiirigelinaya ayaan ku arkay waxaana kamid ah oo ku doortay in maartay oo noo ballan qaaday dhalinyarada inuu shaqo siinayo inuu sidoo kale oo ballan qaaday inuu tayeenayo waxbarashada caafimaadka
iyo wixii la jiro la mid ah sidoo kaleete waxaa aniga si aad ah uga sii helay ama u sii jeclaaday inuu noo ballan qaaday inuu maaragtay oo midayn doono oo ma hoos keeni doono wasaaradda waxbarashada dugsiyada qur-aanka kariimka oo runtii ah diinteena meesha ay kasoo bilaabato qofka islaamka meeshiisa koowaad ay kasoo bilaabato haddana ah kuwa ugu meelaha ugu dayacan in runtii uu ku dari doono wasaaradda waxbarashada waxyaalahaas aniga aad ii soo jiitay magacaygu waa cali mahdi maxamuud cali walaal musharax cumar cabdiqaadir cumar fiqi waxaan ku doortay inuu yahay musharax doonaya inuu sharcigu taliyo si loogu sinaado wuxuu kaloo si cad noogu ballan qaaday shaacintii xafladii musharaxnimadiisa wuxuu si cad noogu ballan qaaday inuu doonayo garsoor madax bannaan hufan kana maran dulmiya ah wuxuu kaloo cumar fiqi noo ballan qaaday uu sheegay inuu noo sameynayo garsoor madax bannaan ii sheegeen guddi xeer beegti ah si looga hortago musuq maasuq iyo